haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirso. sheekadan waxay ku dhacday wiil magaciisa la yiraahdo daahir wuxuu degnaa magaalo ku taalo United Kingdom. daahir iyo walaalkiisa yar markasto gurigooda ay iska ciyaari jireen waxayna ku dhisi jireen teendooyinka yaryar ee carruurtu ku ciyaaraan. laakiin daahir wadadii uu degnaa wadada ku dhigneed waxaa degnaayeen dad tuuga ah meeshaasna waxay ku kala iibi jireen dadka bini'aadamka. sidoo kale daahir diriskiisa wuxuu ahaa pilot hore ayuu ahaa laakiin hadda wuu duqoobay. pilotkaasna magaciisa waxaa la dhihi jiray Mr. Carroll waxaa dhimatay xaaskiisa kadib wuxuu bilaabay in uu khamri iyo drugs u isticmaalo. sidoo kale Mr. Carroll xataa wuxuu tagi jiray wadadii nagu dhigneed ee degnaayeen dadkii tuugada ahaa. muddo kadib Mr. Carroll waxaa la iibiyey gurigiisa sababtoo ah waxaa lagu yeeshay dimaad u badan. daahir asigoo wadada maraya ayaa wuxuu arkay Mr. Carroll wax badan oo la sheekaystay. daahir waxay soo raaceen Mr. Carroll waxayna isla imaadeen guriga laakiin Mr. Carroll uu ka haray. maalinkii labaad waxay u imaadeen meeshii Mr. Carroll laakiin daahir wuu waayay Mr. Carroll. kadib waalidiintiisa ayuu wuxuu weydiiyey Mr. Carroll halka uu jiro laakiin daahir waalidiintiisa waxay ku yireen anaga ma naqaan meesha uu jiro. habeenada ka mid ah daahir iyo walaalkiisa yar waxay ku dheelayeen teendadii yareed ee banaanka ku dhisteen. daahir iyo walaalkiisa yar waxay ku dheelayeen qoryaha carruurta. qoryahaasna waxaa laga ridayay lastika oo kaliya. daahir iyo walaalkiisa yar waxay iska ciyaarayeen teendadii yareed ee banaanka ay ku samaysteen. iyagoo ku ciyaaraya ayaa banaanka waxay ka maqleen jaqaf ama si kale dhawaq. kadib waxay isla markii u maleynayeen dabaco ay markaas ku ciyaarayeen markastana ay tuuriyeen. daahir iyo walaalkiisa yar aad ay u farxeen sababtoo ah hadda waxay haystaan qoryo mar dambe dhagax ma ku tuurayaan. waxay go'aansadeen in ay ku tuuraan qoryihii ay laastika ka ridayeen. daahir iyo walaalkiisa yar waxay u soo baxeen banaanka si ay dabacada ugu tuuraan qorigooda ugu ridaan. kadib markii ay banaanka soo istaageen waxay arkeen waxay ay sugayeen wax ka duwan. waxay arkeen nin xiran dharkii Mr. Carroll. isla markii waxay garteen in ninkan uusan ahayn Mr. Carroll. daahirna wuu fahmay ninkan inuusan ahayn Mr. Carroll kaliya wuxuu xirnaa dharkii Mr. Carroll. daahirna wuxuu ku dareemay ninkan inuusan ahayn Mr. Carroll. ninkani uma ekeen nin duq ah tintiisana waxay ahayd tin iska baroon ah amsi kale dahabiga ah laakiin Mr. Carroll tintiisu way cadeed wuxuuna ahaa qof duq ah. daahir iyo walaalkiisa yar waxa cabsida geliyay wuxuu ahaa ninkan dharkiisa oo dhan wuxuu ahaa dhar wada dhiig ah. dharkii Mr. Carroll uu watay wada dhiig ayuu watay. daahir iyo walaalkiisa yarna aad ay u baqeen. kadib daahir iyo walaalkiisa yar ninkii waxay ku dhaheen adiga yaa tahay. ninkii dhulka ayuu wuxuu ka soo qabsaday masaar. daahir iyo walaalkiisa yar markii ay masaarta arkeen aad ay u cabsadeen labadoodana way soo carareen waxaan u soo carareen gurigooda. daahir asigoo ordaya ayuu madax wuxuu ka dareemay habo. kor markuu fiiriyay hawadaas madax ka martay waxay ahayd masaartaasna madax ayay ugu dhacragtay uuna ka badbaaday. asigoo qeylinaya ayuu wuxuu soo galay daahir gurigiisa aadna wuu sii qeyliyay wuxuuna u wacay hooyadiis iyo aabiis wuxuuna u sheegay arrinkii ku dhacay. daahir iyo waalidiintiisa si dhaqsi ay guriga ugu soo baxeen si ay u ogaadaan qofkaasi qofku uu ahaa laakiin qofkii meesha uu ka cararay. daahir waalidiintiisana waxay la hadleen booliiska waxaana u sheegeen in uu dilay soo weeraray. ilaa haddana lama sheegi karo in dileegaas la qabtay iyo in kale. daahir waalidiintiisa waxay go'aan ku gaareen in teendhada banaanka ku dhisan mar dambe lagu ciyaarin gudahana
Aşık birden ona